kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada wararkeena iyo warbixinay daawadayaal ku barateen inaanu afka hooyada ku soo ururno qodobada wararkeena ku daawad doontaan waxa kamid ah dunida oo si weyn u soo dhaweysay isla markaana aad ugu sacabtuntay heshiiska taariikhiga ee aan la filaynin ee dhaxmaray dalalka koonfurta iyo waqooyiga Korea iyadoo ilaa xad haatan wada hadallada isla gaareen inay dib u midoobayaan labadaasi dal Sacuudiga oo wali markaas ay ku socoto duqeynta ka imaanaysa kooxda Xuuthiyiinta ee dalkaasi Yemen haysta iyo gantaalo cusub oo lagu garaacay dalkaasi Sacuudi Carabiya رئيس وزراء إثيوبيا وسقونا مركي جوري زي شيء إنه حديد الدورة حل قال الدورة نجور رئيس وزراءها دالكاسي أما قفك مدح دولة حكومة ضع أو مركزي أيضا مركي رئيس كهيد مد سكفرن دال كم إذا مد وجيرب أو مدحينه هي رئيس وزراء يسكو خلافين إن سفارة إسرائيل كل يهين مجال تلفيف طالة لجي قدس أرنت أصلا أيضا دالكاسي خلاف سياسي حجن كذا لسي قضاء بعض يكوك ليدكم مقلد دونتان ضبط شقيمة عليه وسيدي لباتنكي بشي أبريل لبدي يكون يسيدي الثمن مالنا وصبتي وكل كلا برامج كني في القناة هدينا أنكو بلعبه استمر كان نقول رئيسية يهودا أيا وليسي وضع الله أنت يبرك أنت دتك إيران فلسطين كم دهراضة يديجان ندى حدود كيال صدق قف أو رير فلسطين أيا دنتاج قبل الماضي الشلعي كدي مركي ضد يسوق صباحان حدود وده حيث إسرائيل يمجال الجانصان قصة صدق واحد ما تهي سجال بقول يكون طن كلنا واحد وعمل إسرائيل أيام وقتين إسكارك ترى صباغيدا هيدا عقل إنسان كإيمانية كم يدين كوا قرمد مدبي كوباق يا إني تشوتشو رصاص نوع لا استعمال صدق مظاهرات يا سيدو كلا إن يرئيس أود الإيراد كاي استعمال صدق مظاهرات بقول يتدبات يسديد كم ده ضد كاس عيال الشيء إن دوعيد يهين رصاص نوع ولا دعي هلك صدق كلنا يجريودين dadka reer Israa'iil ayaa dadka reer Falastiin ayaa wada baaqay Israa'iil u dirayaan oo ah in ay sii wadayaan baaqoodii ahaa in loo celiyo dhulkoodii kadib sanadkii 1948 ay ku hubsadeen dadkii laga keenay qurbaha ee ayagu ahaa reer Israa'iil dadka banaanbaxaya dhamaantood waxay dalbanayaan in dadka loo ogolaado inay guryahoodii ku soo noqdaan tan iyo intii ay bilowdeen banaanbaxyadaas bishii hore waxaa dhintay isku geyn 45 ruux halka 6,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee magaalada qasa ashraf al-qidra ayaa wuxuu sheegay in dhulka rasaasta Israa'iil ay soo gaadhay uu ka mid yahay isbitaal markaas lagu dabiibayay dadka oo dadkii la dabiibayay mar kale rasaas kale iyo madaafiic kale haleeshay isla goobtii waxaana magaalada qasa oo loo yaqaan xabsiga ugu weyn caalamka ee dusha ka furan kadib markii ay go'doomiyeen isla markaana magaaladaasi ay ka dhigeen mid go'doonsan dalalka Israa'iil iyo مصر أيضا كحرتي مرينكا رفح لو يقانو أو يجون على الباب يسجد في إسرائيل وكوج دائما أيها وحاها تندت كالكاس كود باتيسن أيها نقضين كوا عن كعب سنة إن حبض إسلام كان إسرائيل أو شكتي إن عجارن عس أن الله صار فكرين أي مرة والرصاص نول قصة تورتات كاسي تاسو مركزي أي كجهر مانس هل كان قد أوانا صانع وحروف الميديا يورك يقدم يدين ده يوربحين دين عدم سيادة haweenay ku nool ama ka soo jeeda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay markii ugu horeysay ayadu iskaga dhalisay ama iska umrisay ayada oo adeegsanaysa markaasi barnaamijyo arintaas ka hadlaya oo ku jira barta YouTube haweenay ayaa sheegtay markii ay foosha qabatay xilli ay kaligeed ku jirtay qol hotel ku yaala in ay shidatay isla markaana ay daaratay shabakada YouTube kadibna ay raadisay sida loo dhalo taasina ay ka caawisay inay iyadu iska umriso Tia Freeman oo ku nool ama ka soo jeeda gobolka Nashville ayaa u sheegtay warbaahinta Newsbeat in uusan jirin qof kale oo ka caawiyay oon ka ahayn YouTube Tia iyo ilmaheeda caafimaadkooda hadda waa mid wanaagsan Tia oo 22 jir ayaa safar ku joogtay dalka Jarmalka iyadoo xaamilo u ah xilliga ay u qabatay foosha xaamiladeedii markaasi u eg inay gabagaba ahayd waxay biyo qandaca ka buuxisay barkada musqusha waxa ayna soo qaadatay dhowr shukumaan kadibna waxay shidatay YouTube-ka inta ay dhex gashay barkadii ay biyaha qandaca ku shubatay ama meesha yar inta badan musqulaha ku dhex yaala lagu qubaysto intii ay foosh socotay Tia ayaa bogada Twitter-ka ku qoraysay xanuunka ay maraso iyo waxa meesha ka socday xaaladeeda waxay isticmaashay xadhiga kabaha ragga si ay u goyso xudunta ilmaha markii subaxii xigtay ay garoonka kula laabatay ilmaheeda cusub si ay dalkeedii ugu laabato ayay sheegtay in shaqaalihii garoonka oo dhan ay wada naxeen isla markaan u maleeyeen inay ilmo soo xaday maadaama aysan sidan waraaqihii dhalmada iyo kuwa loo yaqaano discharge-ka ama kuwa isbitaalka looga baxo ee cadeynaya inay qofkaas ay wadanka ku umushay isla markaana ay ahayd
markaasi ay ahayd qof markaasi ilmaha iyadu dhashay waxay dhashay wiil waxayna u bixisay Shafi shirkadda duulimaadka ee Turkish Airlines ayaa ka bixisay qarashka 2 toddobaad oo ay ku deganaan lahayd hotel ku yaala magaalada Istanbul si ay halkaas ugu umulbaxdo waxaana ay shirkaddu ay ku qancisay inaysan Mareykan ku noqon tan iyo intay si wacan u umulbaxayso dadka isticmaalaha baraha bulshada ayaa aad u hadalhayay dhacdadan waxayna ka dhiibanayeen aragtiyo kala duwan dabcan sheekadan waxay muhiim u tahay sida adduunka tiknoolajiyada loo gaaray iyo waliba YouTube-ka waxyaalaha faraha badan ee laga helo oo dad badan ay u baahan yihiin inay marmarka qaarkood ay caawimaad u baahan yihiin ka heli karaan YouTube taasoo cadeynaysa in shirkadda YouTube ay horumar waaweyn isla markaana dad badan oo aqoon leh ay ka buuxiyeen macluumaad fara badan oo qofka uu u baahan yahay marar badan xataa haweenadaas iska umulisay halkan ka daawanaysan waa Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida dhinaca diblomaasiyadda dalka Russia wuxuu ku dhawaaqay si rasmi ah inuu guud ahaan ama qaybtii ugu dambeysay ee cunaqabatayntii dhinaca qudaarta ee dalkaasi Turkiga saarneed la qaaday wasaaradda beeraha ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay soo gaadhay bay yiraahdeen war qoraal ah oo ka soo baxay dhigooda ama wasaaradda beeraha ee dalkaasi Russia oo cadeysay in gubi ahaanba la qaaday qaybtii ugu dambeysay ee cunaqabatayntii ka dhalatay khilaafaadkii labada dal dhexmaray sanadkii 2016 dowladda dalkaasi Russia waxay sheegtay in yaanyada dalka Turkiga ka timaada oo ahayd yaanyada ugu badan ee laga isticmaalaan inta ku dhow 250 milyan ee ruux ee Russianka ay ka imaan jirtay dalka Turkiga yaanyadan ayaa waxay ku bixi jiray $1,000 oo dalka Turkiga heli jireen ka hor intaan la joojin hase yeeshee wasaaradda beeraha ee dalkaas haatan waxay sheegtay in laga bilaabo 26 Abriil si rasmiyada looga qaaday isla markaana cunaqabataynta looga qaaday wax soo saarka beeraha ee dhinaca yaanyada ee dalkaasi Turkiga uu keeni jiray dalka Russia waxay sheegtay in cilaaqaadka labada dal uu sii xoogeysanayo bishii January ayay ahayd 2016 markii diyaarad ay leedahay ciidamada cirka ee dalkaasi Turkiga ay leeyihiin dhulka soo dhigtay diyaarad markaasi miig ah oo laga lahaa dalka Russia taasoo lagu eedeeyay inay faragelisay ama ku soo xadgudubtay hawada ama hawada sare ee dalkaasi Turkiga taasoo labada dal xaaladooda ay mar adkaatay haatanse tan iyo intii arintaas ka dambeysay ayaa labada dal xiriirkooda aad u sii hagaagayay sidoo kale dowladda dalkaasi Turkiga ayaa waxay dhawaan afayeen u hadlay ama maanta afayeen u hadlay madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa wuxuu sheegay in uusan Turkigu ku jirin kala doorasho reer galbeed iyo Russia Turkiga ayuu sheegay inuusan qayb ka ahayn dagaalka qabow ee dunida ka soconaya ku saabsan awoodda reer bariga iyo tan reer galbeedka balse Turkigu uu labada qayboodba gacan wanaagsan iyo xiriir wanaagsan u leeyahay sidoo kale Turkiga ayaa diiday in uu markaasi uu haba yaraatee uu ka noqdo cilaaqaadka wanaagsan ee Ruushka la leeyahay ayagoo sheegay inay sii adkaanayaan cilaaqaadka ay leeyihiin intayna arrimaha Turkiga ka bixina wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kulmay 24 saac kadib markii golaha sanadka ama golaha aqalka sanadka dalkaasi Mareykanka ay ansixiyeen in uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda Mr Pompeo labada hogaamiye ayaa waxay ku kulmeen magaalada Brussels ee xarunta dalkaasi Belgium sidoo kale xarunta midowga Yurub ay inta badan ku shawreen waxaana labada dal way ka wada hadleen qadiyado waaweyn oo ay kamid tahay iska horimaadkii laga baqayay in uu laga fogaado magaalada Manbij waxaana wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu uu kaga dhawaaqay markii shirku dhamaaday halkaasi in labada wasiir ay isla afgarteen in arintaasi laga heshiiyo wuxuu yiri waxaan u gaadhnay heshiis horudhac oo ku saabsan qadiyada iyo waxa uu ugu yeeray road map-ka ama tubta nabadda ama tubta loo marayo wuxuu yiri siyaasadda dalkaasi Syria taasoo ah buu yiri in kooxda YPG ay ku jirta magaalada Manbij si degdeg ah looga daabulo isla markaana ay ka baxaan haddii ay ka bixi waayaan loo ogolaado in ciidamada Turkiga ay talaabo ka qaataan taasoo Mareykanku uusan faragelin doonin wuxuu sheegay in uu sidoo kale ka helay wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkigu inuu ka helay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka martigelin uu ku marti qaaday aqalka cad iyo waliba wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka magaalada Washington si ay arinta u soo gabagabeeyaan wuxuu ku tilmaamay in wadahadalkoodu uu ahaa mid macaan isla markaana wax ku ool ah sidoo kale Mevlut Cavusoglu ayaa wax laga weydiiyay ololaha ka socda aqalka sanadka dalkaasi Mareykanka ee la doonayo in cunaqabatayn lagu saaro waxyaalo kamid ah qalabka dawladda dalkaasi Mareykanku ay ka iibiso dalka Turkiga kadib markii nin markaasi baadari ah oo u dhashay dalka Mareykanka la xukumay
oo maxkamad lagu soo taagay dalkaasi Turkiga. Mr. Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in arinta maxkamadaynta baadirigu ay tahay arin cadaaladeed ee aysan ahayn arin siyaasadeed. Labada dal ayaa arintan runtii ay ka wada hadleen. Sidoo kale waxaa la isla soo qaaday iyadoo dowladda dalka Mareykanku ay walaac ka muujisay soo iibsashada iyo la soo wareegista baa la yiri gantaalaha casriga ah ee dhinaca markaasi difaaca cirka loo yaqaano S-400 taasoo dowladda Turkigu ay ka iibsanayso Russia. waxaana Mevlut Cavusoglu uu sheegay ama arinta uu shirka jaraa'id u qabtay uu tafaasiil kaga bixiyay in arintaas la isla soo qaaday intay wada fadhiyeen. wuxuu yiri waan isla soo qaadnay qadiyada ku saabsan gantaalaha aan Ruushka ka iibsanay waxaana u sheegnay in arintaas ay dhamaatay isla markaana lacagtiiba la shubay gantaalihiina haatan ay soo bilowday inay soo gaaraan dalka yaga. sidaa daraadeed waxaydan uga walaacin ayaan u sheegay inaanu markii hore idinkeedii soo bandhignay inaanu idinka iibsano gantaalaha ama nooc loo yaqaano TAR system idinku aad gadaan kadibna aad ka warwareegteen oo aad diideen. sidoo kale waxaanu arinta ka dalbanay dalal kale oo midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO ayaguna way ka warwareegeen. sidaas oo ay tahayna dowladda dalkaasi Turkigu wali waxay diyaar u tahay inay iibsato gantaalihiina dhinaca difaaca iyo kuwa kale oo aan u baahanahay iyo ay kamid yihiin kuwa ay soo saarto shirkadda dhinaca difaaca ee French Italian Consultum loo yaqaano ama Eurosam. waxaana jecelahay inaanu xiriir wanaagsan oo dhinaca difaaca idala yeelano idinku se wadliqi laadihin ayuu u sheegay warfidiyeenada. wuxuuna sheegay in uusan haba yaraatee uusan Turkigu uusan ka noqon doonin wax kasta oo markaas cilaaqaad iyo waliba heshiis oo ay la galeen Turkiga. daawadayaasha qiimaha leh wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda wani bartamaha kaga jirnaa qodobada dambe iyo wararkeena ha moogaaneen daqiiqateen.